kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena waaweyn waxa ay kala yihiin baarisa BBC-du samaysay dil qof dumar ah iyo ilmaheeda oo lagu dilay waqooyiga Cameroon ayaa markii ugu horeysay lagu ogaaday goorta iyo gacanta dilka geysatay warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxa kamid ah madaxweynaha Iran ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo xulafadiisa Khaliijku in ay weerar dhiig ku taatay u geysteen ciidankeeda Washington ayaa ku jawaabtay in uu muraayad isku eego hogaamiyaha mucaaradka Maldives ayaa sheegtay inuu guul ka gaaray doorashooyinka waxa uuna sheegay in tilaabadiisa ugu horeysa ay tahay in uu sii daayo maxaabiista siyaasadda faqidada ciyaaraha iyo qaybta dambana waxaanu eegi doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska iyo waliba ciyaarta kama dambaysta ee koobka degmooyinka Banaadir oo caawa ka socotay Stadium Banaadir oo aanu eegi doono waxaad BBC News Somali kala socon kartaa telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waaniga maxamed cabdi xaraar oo idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay baaritaan ay BBC-du samaysay oo lagu eegay dil loo geystay qof dumar ah iyo caruur ku nool waqooyiga Cameroon ayaa markii ugu horeysay lagu cadeeyay goorta iyo gacanta ka dambeysay xukuumadda Cameroon ayaa horaantii ku gacan saartay muuqaalkan oo ay ku sheegeen inuu yahay warar been abuur ah laakiin iminka 7 qof ayaa loo xiray Qalib Xasan Baaruud ayaa ka waramaya dumarkan iyo caruurtan waxaa loo horkacayaa geeridoodii askartu waxay ku eedeynayaan inay ka tirsan yihiin ururka Boko Haram muuqaalada ugu dambeeya fiidiyowgani waa kuwa argagax leh oo aan la sii dayn karin iyagoo indha duubanaya dhulka la fariisiyay waxaana la toogtay 22 jeer dadka qaar ayaa ku doodaya in xasuuqani uu ka dhacay Mali qaar kalena waxay sheegayaan in muuqaaladan lagu duubay waqooyiga Cameroon halkaasoo ay dawladdu kula dagaalamaysay Boko Haram ilaa sanadkii 2014 laakiin BBC-da ayaa baaritaan ku cadaynaysa goobta ay ka dhacday goorta ay dhacday iyo gacantii geysatay dhammaadkii July waxaanu xog tilmaama ka helay Cameroon sida uu khadkani muujinaya silsiladahani waxay ku yaaliin agagaarka magaalada Silavat goobtu waa xagaafkan oo ku yaala bannaanka tuulada Karamafa waxaa muuqdaa waa jidkan dhirtan iyo dhismayaashan waa halkan goobta uu dilku ka dhacay goormuu dilku dhacay dhismahan waxaa lagu sawiray dayax gacmeed bishii February sanadkii 2016 dilalkuna waxay dhaceen taariikhda ka hor darbiyada ku hareeraysan waxaa la sawiray bishii 3 sanadkii 2015 wadadani waxay muuqataa xilliga kulaylaha oo u dhaxeeya bisha 1 ilaa bisha 3 marka ay dumarka horkacayaan askarta waxaa muuqda hadhkooda xisaab fudud ayaa laga xigan karaa qiyaasta xagasha qoraxda marka la isu geeyo dilalkani waxay dhaceen 20kii Maar iyo inta u dhaxaysay 5tii April sanadkii 2015 bilowgii July wasiirka isgaarsiinta Cameroon Issa Bakari ayaa sheegay inaan askartani ahayn kuwa Cameroon wuxuuna yidhi hubkani ma aha kuwa ay isticmaalaan ciidamada ka howlgala Cameroon laakiin baaritaankan ayaa muujinaya inuu qorigu yahay Sastaf M21 oo Serbia lagu sameeyo waxaana isticmaala qaybo ka mid ah ciidamada Cameroon waxa kale oo uu sheegay inay muuqaaladan ka muuqdaan askar xidhan tuutaha kaymaha halka ay ciidamada waqooyiga Cameroon ay ka xidhaan tuutaha saxaraha laakiin warbixin ay Channel 4 duubtay 2015 waxaanu cadaymahan hor dhignay xukuumadda Cameroon 7 soldiers were arrested 7 askari ayaa la xidhay waxaa socda baaritaan waxaanu xaqiijinaynaa inay dhammaantood xabsiga ku jiraan qoraalka xukuumaddu waxa uu cadaynayaa inay raggani yihiin bilaa dembi ilaa inta lagu cadaynayo iyo weliba inay heli doonaan maxkamad cadaalad ah taasina ma aha mid la siiyey dumarkan iyo caruurtan waa qisa xanuun badan oo ay BBC-du soo bandhigtay
وهجاج مدحوينها إيران أيا كوسي سعودة نيويورك وحنا لا فيليا إن حيصة السياسات أي كسو فوليهين قالها أمانك قرمدا مدوبي مدحوين الروحاني waxa uu ku eedeeyay Mareykanka iyo isbahaysigiisa in ay ka dambeeyeen toogasho dhacday Sabtidii taas oo ay ku dhinteen 25 kamid ah ciidamada Iiraaniyiin ah oo bandhig military ku guda jiray safiirka Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa kula talisay in dawladda Iiraan ay muraayadda isku eegto iyadoo ay kumanaan qof ka qayb galayaan aaska dadkii geeriyooday Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka waramaya waqtigii ay toogashadu bilaabatay waxa uu ahaa weerarka mid lagu qaaday ciidanka gaarka ilaalada Iiraan in badan oo ka tirsan ciidanka ayaa lagu qasbay in ay ka gambadaan weerar ay soo qaadeen kuwa dawladda ka horjeeda askar iyo rayd ayaa geeriyooday kuwana naftooda ayay la baxsadeen koox carab ah oo dawladda ka horjeeda oo degan koonfur galbeed Iiraan ayaa sheegatay mas'uuliyadda balse sidoo kale waxaa sheegtay kooxda la baxday dawladda islaamka kumanaan ayaa isugu soo baxay dariiqyada magaalada Afees si ay u macsalaameeyaan dhibanayaasha madaxweynaha Iiraan Ruuxaani ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo isbahaysigiisa wadamada qaliijka ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku jiraan wadamada yaryar ee la dhoobdhoobo ee ku yaala gobolkayagan waxaa taageera Mareykankuna waxay ku riixayaan inay sameeyaan dambiyadan ay galayaan Mareykanku way beeniyeen inay wax lug ah ku leeyihiin iyagoo kula taliyay madaxweyne Ruuxaani inuu dhaqankiisa hubiyo labada hogaamiye waxay isku dhaafsan doonaan qaramada midoobay eedeymo iyo aflagaado kuwii ugu weynaa abid madaxweyne Trump ayaa taas arki doona marka uu gudoominayo kulanka golaha ammaanka markii ugu horeysay isagoo diiradda saarayo Iiraan waxay ka dhigan tahay taas in codadka isbahaysiga Mareykanka ee Yurub oo wali ku dhiirigelinaya isxakamayn inay meesha ka bixi doonaan jawiga siyaasadaha adduunka ee kala fog ayaa durbaba u muuqda mid aan la saadaalin karin Cusmaan Cabdi Xasan ayaa warbixintaasi noo akhrinayay oo nala socodsiinayay bal markan haddii aanu egno qodobada kale ee ku jira wararka caawana mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa si adag u xadiday ololaha looga hortagayo cudurka Ebola nabadgelyo xumo sii badanaysa ayaa iyana ka dhigaysa in dhaqaatiirtu aanay awood u lahayn inay sameeyaan kormeer talaal ama wacyigelinta deegaanka Beni wali waxaa sii furnaan doona hayeeshee xarumaha daaweynta dalka Kenyana gudoomiye gobol ayaa lagu oogay xukun dil ah kadib markii lamaanihiisa oo ka da'yarayd meedkeeda laga helay meel Kenya Okodo Obado oo kamid ah ama ka yimid gobolka Migori ayaa jamcihii la xiray walina waxa uu ku jira gacanta ciidanka ammaanka dalka Kenya waxa uu beeniyay inuu ku lug lahaa dilka Sharon Otieno oo 26 jir ah aswadareed ayaa loo qabtay rakaabkii ku geeriyooday dooni khamiistii ku gadoontay harada Lake Victoria ee dalka Tanzania 224 qof ayaa ilaa iyo iminka la ogyahay inay ku nafwaayeen masiibadaasi in tirada inta ka sii badatana waa wax la fili karo mar kasto dadaalada badbaadinta ayaa weli ka soconaya harada agagaaraheeda watahay bal markan haddii aanu eegno dawladda Maldives ayaa qirtay guusha hogaamiyaha mucaaradka Ibrahim Mohamed Saleh oo doorashada madaxweynaha oo axadii dalkaasi ka dhacday Mareykanka iyo Hindiya ayaa soo dhaweeyay doorashadiisa waxaanay sheegeen in xisbigiisu muhiimadda siin doono sii deynta maxaabiista siyaasadda haddii aynu eegno muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka imaanaya halkaasi waxa ay ku tusinayaan in damaashaadkii muuqaaladana aad arkaysaan iyagu waa damaashaadkii ay qabteen taageerayaashiisa caasimadda ay ku qabteen meel natiijadan ayaa la yaab ku noqotay dad badan oo ka shakisanaa in ay doorashadu xor iyo xalaal u dhici kari lahayd haddaba madaxweynaha xilka ka degaya ayaa la sheegaya oo lagu magacaabo Master Yamin ayaa lagu eedeyn jiray in uu xabsiga dhigi jiray dadka ka soo horjeeda laakiin iminka wuxuu aqbalay in laga adkaaday
isagu waxa uu taageeraa ama xiriir dhow la leeyahay dalka Shiinaha halka Saalix ninka hadda qabsadayna uu u janjeero dhanka Hindiya haddaba waa maxay hardanka Shiinaha iyo India ee dalka Maldives haddii aanu taas eegno waxa ay wararku sheegayaan in Maldives ay tahay wadamada Shiinaha iyo India ay kala jeedanayaan iyadoo Shiinuhu Sri Lanka iyo Pakistan hore u maalgashaday halka madaxweyne Yamina uu aqbalay deynta Shiinaha ee kaabayaasha lagu dhisayo sida bundadan lagu magacaabo Sinimale haddaba hadalkii guusha ayuu Master Saalix ku eegay in ay tahay waqtigii farxadda iyo rajada uu dalkaasi wajahayay This is a moment of happiness. This is a moment of hope. waqtigan waa waqtiga farxadda waa waqtiga rajada waa waqtiga taariikhda in badan oo naga mid ah safar adag ayay soo mareen safar u horseeday qol xabsi ah iyo sanado dibad joog ah waxa uu ahaa safar lagu arkay burbur guud oo ku dhacay siyaasadda iyo hay-adaha dawladda balse safarkaasi wuxuu ku dhammaaday sanduuqa codaynta maxaa yeelay dadka ayaa doonayay That has ended at the ballot box because the people willed it. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo waliba Instagram wagaag weli waxa inoo soo socda oo aad qaybta dambe ku daawan doontaan faaqidada ciyaaraha iyo qaybta dambena waxaanu ku eegi doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalka Ingiriiska qadar yaro nasasho habeen wanaagsan mar labaad weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka wanigoo Maxamed Cabdi Xaraare bal idin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn Baris ay BBC-du ka samaysay dil qof dumar ah iyo ilmaheeda oo lagu dilay waqooyiga Cameroon ayaa markii ugu horeysay lagu ogaaday goobta gacanta iyo cidda dilka geysatay madaxweynaha Iran ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo xulufadiisa Khaliijku inay weerar dhiig gutaatay ka geysteen ciidankeeda Washington ayaa ugu jawaabay inuu muraayadda isku eego dhawaan magaalooyinka ka midka ah dalka Mareykanka waxa lagu soo bandhigay buug cusub oo lagu magacaabo Call Me American oo macnaheedu tahay iigu yeer Mareykan qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa ka gedooday buugan iyagoo sheegay in qayb ka mid ah buugan uu gaf guud iyo mid gaar ahaaneedba loogu geystay haddaba waxaanu qaybtan su'aalo ku weydiin doonaa Cabdi Iftiin oo ah qoraaga buugan oo iminka toos ugu jira magaalada Freeport ee gobolka Maine Cabdi ku soo dhawow BBC Somali TV haddii aan ku weydiiyo su'aasha ugu horeyso buugan Call Me American adiga ayaa qoray inta aanan gudihiisa u galinna bogiisa ugu horeeya waxa ka muuqda in uu mugdi kaaga jiro cidda aad tahay Soomaali ama Mareykan ma sidaaba maya taas xaqiiq ma ahan aniga waxa ahay qof Soomaali ah oo waliba isugu weyn ka soo tagay magaalada Muqdisho xamar magaalada joogay laakiin macnaha buuga ciwaankiisa markaa fiiriso Call Me American oo waliba noqotay mid aan dhihi karo ka yar xanaajisay Soomaali fara badan waa un sheekadeyda waaye anigoo 9 sano jiro magaalada Muqdisho joogo ayaa waxaa helay naaneystaas oo ahayd Cabdi American oo dhalinyarada ama ciyaalka markaas aan isku da'da ahayn ay ugu yeerayeen marka jahwareerka ma jiro taas aniga qof Mareykanka 4 sano hadda jooga ahay marka identity-gayga ama qofka aan ahay cadeen ahaan taas waa caddahay oo waxaan ahay qof Soomaali ah waa gartaa haddii aan ku weydiiyey inkastoo buugan siyaabo kala duwan looga hadlay noo sharax ama noo soo koob fariinta uu buugan sido Cabdi fariinta buugan uu sido waa fariin aad iyo aad muhiim u ah waliba nuxur u leh gaar ahaan dadka Soomaaliya aan waxba ka garanaynin laba filim waxaa jirto Mareykanka aad looga daawaday mid waxaa la yiraahdaa Black Hawk Down mid waxaa la yiraahdaa Captain Phillips oo laga sameeyay Soomaaliya labadaba waxay sheegayaan sheekooyin isku noocaas u fiirso burbur dhac iyo boob iyo maleeshiyo iyo tuugnimo iyo waxyaabahaas oo kale ay ku jirto laakiin sheekada saddexaad oo aan filimkaas ku jirin ama ka maqana waxay ahayd sheekada bani aadamnimada macnaha marka buugan fariinta uu diraya waxay tahay inuu jiro qof ama Soomaali oo la hami
ama leh awood ay ku riyoodaan ama wax ku hamiyaan oo magaaladana kusoo koray dagaalka sokeeyna kusoo dhex koray oo laakiin dad Soomaali oo weliba rabo sida carruurta dadka reer galbeedka ku nool oo kale qof inuu riyoodo wax qabsado wax barasho helo oo nolol wanaagsan helo oo nabad helo meel noloshiisa ay ku wanaagsanaan kartone uu rabo inuu aado macnaha sheekadaas oo aan ku jirin filmaanta laga sameeyay buugaagta kale ayay ahayd weliba qof shakhsi uu qoray aniga waa gartay cabdi buugan waxaa ku jirta in tani markaa 6 sano jirta aad ku haminaysa inaad Mareykanka timaado ama jaclaydba Mareykanku ma yahay meesha aad ku haminaysa markii aad eegto siyaasadda maanta taagan maya Mareykanka aad iyo aad uga duwan yahay wixii ay ku hamin jiray ama waxay filmaanta aan ka arki jiray run ahaantii ma ahan Mareykanka aad uga duwan tahay marka halkan imid khibrado fara badan oo kuwa hore ka duwan aan arkay xaqiiqatan markaan airportka kasoo degay Boston sanadkii dabayaaqada sanadkii 2014 waxa ugu horeeyay oo aan buuxiyo waxay ahayd form ama warqad la soo hordhigay oo ahayd inaad kala doorto qofka aad ahay way faham Soomaali marka Soomaalnimo kuma qorno meesha waxa ku qoran qof madow inaad tahay African American ama inaad tahay dadka cadcadka Caucasian-ka iyo Asian iyo Latinos iyo marka waxay igu noqotay wax aad iyo aad macnaha looga fajaco in Soomaalinimo iyo qabiilkii aan isku qeexi jirna Soomaalihaan laga soo gudbay waliba ay tagtay qofka kalarkiisa Mareykanka marka ay imaato in ay noqoto wax isku waa gartay cabdi haddii aan su'aal ku weydiiyo cutubka 16aad buugan oo aad ugu yeertay respect ama tixgelin dadeed waxaa ku jira dad fara badan oo aad garanayso oo aad caysh wadaag ahaydeen oo guri isla deganeedeen oo yiri been baana looga sheegay buugan buugu ma mala awaalba mase waa xaqiiqo jirta sidiisaba maya buuga waa xaqiiqo jirto dhibaatada jirta waxay tahay horta aniga qofka buuga qora aniga waay buugana waa memoir oo ma ahan fiction ma ahan memoir oo non fiction ah weeyaan marka wax allaale wixii meesha isku jiro fiirsi fara badan iyo kurgal fara badan aan u galay marka arrin waxaa jirto wiilal aan guri isla deganeen aan ka qoraya jirto hase yeeshee maalmihii dambe adee 2 isbuuc 3 isbuuc ugu dambeysay buugu wuxuu qabsaday baraha bulshada Soomaalida waliba dad fara badan ay aad uga qeyliyeen leeyihiin dhaqankii ku ciyaaraya diintii ku ciyaaraya laakiin xaqiiqda waxay tahay sida dhabta ah waxay tahay inta qof ee maanta buuga ka cabaadayso ama ka qeylinayso runaantii hal shakhsi oo buuga si dhameystiran u akhriyay ma jiro hal baal iyo laba baal buug Quraanka Kariimka kitaabka Quraanka Kariimka ma aha oo qof bin aadan ah waxyaabo qofka dareenkiisa ka xanaajin karo emotionally ama dareen ahaan qofka uga xanaaqi karo uu ku jiri karaa laakiin waxa buugaas ku jiro waa xaqiiq oo dhab ah oo hal shay ama lama awala ku jiro waa gartay markii la eego guud ahaan luqadda uu ku qoran yahay ama toonka waxa la yiraahdo waxa la sheegayaa in Soomaalida oo marka horeba waxyaabo badan lagu xamanayay in aad dabka ku sii turto basiin ku shiday warkaas maxaad uga jawaabaysaa horta xaqiiqatan waxaan dhihi karaa Soomaalida waxa way community awlba dhibanaa ana waa kamid ahay oo aniga qof Soomaali ahay qaasatan sanadkii ugu dambeeyay iyo bar iyo wixii la mid ahaa sanad wadankan waxa Soomaalida waxay ku jirtaa liiska 7 dal oo la xukumay oo la yiri wadanka ma imaan karaan iyo waliba inay yihiin macnaha islaamnimada iyo waxyaabo fara badan laga hadlay has yeeshee buuga waa sheekadeeda sheekada aniga ugu saabsan tahay community kuma saabsano Soomaalida kuma saabsano marka wixii aniga aragtideeda indhahayga aan ku arkay dhageyga aan ku maqlay kaliya un baa wax ka qoray aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdi iftiin kaasi wuxuu ahaa cabdi iftiin oo Freeport Maine nagala soo hadlayay oo qoray dhawaan book mahadsanid cabdi adaa mudan waa mahadsantahay faqidada ciyaaraha ee caawana waxaanu ku eegi doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo qodobo kale oo xiiso leh waxa stuudiyaha ila jooga Maxamed Axmed Daysane Maxamed soo dhawow haddii aad si kooban noogu dulmarto ciyaarihii ugu dambeeyay ee dhacay Sabtidii iyo Axadii ciyaarihii ugu dambeeyay oo Sabtidii Axadii dhacay West Ham waxay hakisay Chelsea oo 5 ciyaar ugu dambeysay soo badisay oo ever ku dhamaatay Arsenal oo ayadana kaalintii 6aad soo gashay oo Everton 2 uga adkaatay waxaa kaloo ayadana dhacay Fulham iyo Watford oo 1 ku kala tagay Burnley oo muddo aanan badin 4 ayay waxay uga adkaatay Bournemouth Cardiff iyo City ayaa waxa dhex martay ciyaar City oo lugta ku haysay Liverpool oo 5 gool ka dhalisay oo ciyaarihii lagu yaqiinay soo bandhigtay Crystal Palace iyo Newcastle wili aysan badin oo ever ku kala tagay Leicester waxay 3-1 uga adkaatay Huddersfield oo kooxaha ugu hooseeya Premier League kamid ah Man United oo gurigooda ku martigelinayso Wolverhampton taasoo Wolverhampton ahayd koox aad iyo aad
u xiiso badan sida ay u ciyaaray sanadkan Premier League-na ku soo biirtay oo 1-1 ay ku kala tageen Brighton iyo Tottenham oo 3 ciyaar laga badiyay oo laakiin Brighton 2-1 gurigeeda uga adkaatay waxaa kaloo ayadan xiiso weyn lahayd Liverpool oo 3-0 uga adkaatay Southampton taasoo 7 ciyaar isku xigta ay badisay hogaankana ay Liverpool ay hayso waa gartay Maxamed haddii aan eegno Liverpool waa ogeedo ciyaarihii Champions League-na waa iyaga soo badiyay halkanna weli waa laga badin la'yahay ma kula tahay inay isqaybin karto Liverpool ay sidan ku sii wadi karto dardarta ay wado horta Liverpool waxay eg tahay koox sanadkan Man City kooxda kaliya qaba karta ayada inay tahay oo Man City waa la soconaa sanadka hore 100 dhibic inay gaartay 106 gool ay dhalisay oo koox aad iyo aad u ciyaar fiican ay tahay marka sidii Liverpool ay Van Dijk u keentay difaacood aad iyo aad u fiicnaa PSG oo aan la soconno Neymar Griezmann Mbappé Cavani inay joogaan ay gurigooda 3-2 uga adkaatay marka Liverpool waa koox sanadkan City qaba karto laakiin su'aashu waxay tahay sidii City oo kala ma aha sababtoo Van Dijk oo 75 milyan laga soo bixiyay hadii uu ka dhaawacmo yay ku bedeli doonaan Saïd Mane hadii uu dhaawac noqdo yaa booskaas buuxid dhibaatooyinkaas ayaa haysto aad iyo aad u gartay waxa kale jirta in kooxda Arsenal ay leedahay guulo isoo daba xiga guulahaas maxay uga dhigan tahay Unai Emery hadii aan eego runtii Arsenal sidii uu u yimid Emre Una waxa u malaysaa isbedel inuu ku yimid oo rabo inay kooxda gadaal ka soo bilowdo oo goolhayaha ilaa iyo horay kubadda ay dhulka ku soo wadaan taasna ma naqan karto in waqti fudud ay ku helaan inkastoo ay Chelsea ka adkaatay City ay ka adkaatay laakiin afartii kale way soo adkaadeen runtii afkooda aad u fiican yahay la kasad guushi ay gaareen Everton waxay aad qaybtii hore inay badisay Everton ay 3 ilaa ay dhaliyaan laakiin way suurtagal weysay wiilkood oo Arsenal fursad oo helay uu dhali waay Chelsea kubadoo helay waa gartay marka saas daraadeed hal fursad ayaa waxa helay la kasad hadii si qaraxlan ayuu u dhaliyay waa runta hadii aad kale ku weydiyo labada Manchester hadii aad taariikhda ku noqon waxa la Wolves kooxda la yiraahdo yare hadda hoos ka timid ayaa laba jeer waxay kala gelisay bareejooyin maxaa ku qarsan halkaas sida dadka horta ay ogyihiin Wolverhampton sanadkan ay Premier League soo gashay laakiin macallinkooda Nuno Santos waa nin Portugiis ciyaartoy badan oo Portugiisana way joogaan marka ciyaarta ugu dambeysay Manchester Wolves ay joogaan Wolverhampton marka ma la dhihi karo kooxda ilaa 100 milyan ay qarash karayaan marka ciyaarta ugu dambeysay hadii ay la ciyaareen Man United ay barbardhac ku kala tageen inkastoo Pogba gool aad u qurux badan oo u dhigay Fredana dhaliyay hase yeeshee waxa lagu hay culaysa lagu hay aad iyo aad u maasanta waqtigaana soo hayo waqtiga ayaa intaas na soo hay ciyaaraha halkaas uga tagaynaa hadii aan hore u sii socono xusuusno wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka waad ku mahadsantihiin daawashadiina inta aan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo haddii aad doonayso wararkeena kalentana waxa aad ka dheehan kartaa baraheena Facebooka Twitterka iyo waliba Instagramka iyo waliba website-keena